والله ما أقان جاهل نمو إن أو تعديان إسكا صعدو oo dadku aysan ma aragtay sharci kala reebay uusan jirin fiiri aniga hadda markii aadka ataaga la igu soo qaaday reerkayga aniga shakhsiyadayda diintayda waa lagu gaalaysiiha waxaa lagu leeyahay qofkaas gaal waryaa kuu sheegay anaa ku joogo qof muslim oo ku dhashay diinta who yaa ku siinay awooddaas السلام عليكم كلنتو wanaagsan khiyaarey ku soo dhawaada hanolaato aniguna waa yaal Xuseen Cabdi waa qaybtii saddexaad ee wareysiga aan ka qaadanay wasiirkii hore ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee dalka Deeqo Yaasiin Xaaji Yuusuf oo marti nagu ahayd barnaamijka qaybii hore ayaa soo daawateen laakiin qaybtan waxaan xoog ku saari doonaa waxaabay ugu dambeeyay ee wasaaradda ay kala kulantay markay timaado meelmarinta xeer dood badan dhaliyay oo ku saabsanaa ilaalinta xadgudubyada ku dhaca dumarka gaar ahaan kufsiga deeqo soo dhawow aadan ugu faraxsanahay mar kale barnaamijku waxay noo joogtay inaga qaybtan inaan uga hadalno hadduu Allah awood u ogolaado arrimihii ku saabsanaa xeerkii aad kala kulantay culayska badan ee dowladda dhexdeeda gaar ahaan baarlamaanka xeerkaas bal macnihiisa wax nooga sheeg maxaa la isku qabsaday horta ayaan la sharciga dambiyada jinsiga saan kuu sheegay 2013 soo bilowday 2017 markaan aniga aan la wareegay wasaaradda waxaan isugu yeeray sharci yaqaanadii ka shaqeeyay waay uu ugu horeeyo tahliil xaaji axmed oo runtii ah qof 40 sano sharci ku dhex jiray waay oo soo ahaay judge oo soo ahaay ma aragtay wadanka in magaalo kasta ka soo shaqeeyay waay oo runtii Soomaaliya ay tahay qofka maanta ugu weyn oo sharci markay noqoto curinteeda ma aragtay qofka ugu sareeya ah waay qof way aragtinimo leh diinta yaqaana qof muslim ah af carabiga ku hadla af ingiriis af talyaani intaasna soo joogay runtii waxa waaye qof oo ay tahay maskaxdiisa in laga faa'iideysto waay cimri iyo caafimaadba Allah siiyo asaga ayaa aan u yeeray waxaan ku iri runtii budget uma haysanin aniga waxaan iri sharcigan ifahamsi igalana shaqeey waay isaga nagala shaqeeyay sharcigii waa diyaarinay ma aragtay consultation ban 9 sano oo hadda 9 ay tahay oo sharcigaas oo soo jiitamay waay oo consultation wadanka goboladiisa meel kasta la geeyay civil society oo culimo wax walba lagala soo tashtay waay cabinetkii aan tagnay sideedana sharciga markii oo xukuumad ay keenayso horta sideedaba saddex wado ayaa loo maraa sharci dejinta waay mid waa in ay ka timaado xukuumad fulinta inay ka timaado mid waa in sharci dejinta baarlamaanka dhexdiisa ay ka abuuranto oo guddi abuuro guddi hoosaad iyo constitutionka dastuurkeena oo kumeelgaarka wuxuu sheegaa in shacbiga xataa ay cirin karaan 10,000 oo saxiix haddii la helo inay shacbiga xataa geyn karaan waay so sharcigan xukuumaddu ka yimid kaaga xukuumaddu ka yimid markii oo wasiir ama wasaarad ay soo bilowdana iyadana jidid la maraa jiro oo ah garyaqaanka guud oo ah lawyerka dowladda difaaceeda ayuu soo maray isagaa soo ansixinayo soo siinayo okay golaha la keenaya golihii ka doodayo golihii waxay rabaan ama waxay ka fikradda ay ka qabaan ay ka sheegayaan waa loo codeynaa marka loo codeeyo kadib ra'iisul wasaaraha ayaa 2 warqad raacsiinay baarlamaanka loo gudbinaa annaga marka May 2018 ayaa 22 wasiir fadhisay u codeysay sidaasoo xukuumadda uga gudbay
markuu ka gudbay June 3 2018 waxaa la geeyay golaha shacabka. golaha shacabka baarlamaanka parliamentarianka 275 xildhibaan ee golaha shacabka waxaa loo qaybiyay 15 September 2018 soo koobi way haysteen. markaas habraaca waxa waaye markay haystaan 2 wiil kadib in loo yeero wasiirka soo curiyay oo ka imaanayo laanta fulinta. akhriska koowaad uu galaa. akhriska koowaad 3 su'aal la isweydiiyaa. su'aasha koowaad waxa waaye dastuurka baahi ma jirtaa oo loo qabo sharcigan haddii taas haa tahay 2 shuruucda wadanka u degsanay dastuurka ma la jaan qaadaya ma ka soo horjeedaa. hadday taas haa tahay waxa uu su'aasha saddexaad ku lagu weydiinayo waxaa ka mid ah haddii oo sharci hadduu yahay budget uma baahno oo maaliyad inaad keensatid fulin ahaan ma waxa waaye ma loo baahno. laakiin ka soo qaad guddi haddaad dhisaysid waxaa lagaaga baahan yahay xukuumadda inay la timaado budget guddigaas wax lagu maareyn lahaa ugu socon lahaa. sharci maadaama oo yahay 2 su'aal keliya ku banaan waa imaanaysaa wasiirkii uu meesha baarlamaanku imaanaa 2 su'aal ka jawaabaa wax kale la isma weydiiyo. akhriska koowaad meesha ku dhamaanay guddiga hoosaadka ee wasaarad kasta korjoogteynta ku leh ayaa la wareegay. akhriska labaad ay galay. akhriska labaad markay gasho mar labaad baarlamaankii guddiga wuxuu aadayaa dood shacab waxa la yiraaho shacabkii la soo tashanaa. saddexaad ay imaanay waa loo codeynaa aqalka sare tagay isla jidkii haddana la soo maraa madaxweynihii u tagay madaxweynihii markuu u tago asagana uu iska hubinaa kadib uu saxiixa bulletin official ayuu soo baxay faafinta rasmiga ah. marka horta wuxuu si wadada Soomaaliya xagee adiga marka waxa uu ka bilowdeen dhibkeedu culays ku yimid wuxuu ka yimid 2017kii diyaar u ahaa sharcigan buuqa yimid waxaa aan dhahnay okay bal wadaadada wax ka keenayo falcelinta dooda ka qabo ha soo akhriyeen commentiyo ay soo qoreen tahliil iyo loo celiyay wixii macquul ahaayo aan ka hor imaanayn shuruucda conventionada iyo kulli dastuurka waa laga qaatay wixii kale waa ma la qaadan karo because sharciga jabinayaan waa xoogaa hakaduu galay 2018kii waxaa lagu yiri soo bandhig xukuumadda waan keenay waa laga dooday waa la marsiiyey meeshaasay tagtay. marka sideedana golaha shacabka waxay leeyihiin xeer hoosaadkaas ayaa hagaayay u shaqeynayaan iyo dastuurka. xeer hoosaadka marka wuxuu leeyahay wuxuu qeexayaa hababka ay marayaan. xeer hoosaadka article 27 83 iyo 82 waataan kula qaybsaday waa arki kartaa wuxuu kuu sheegayaa sharci sifooyinka uu ku imaanayo akhriska koowaad ay tahay inuu maro. wuxuu kuu sheegayaa xeer hoosaadka maxaa la dhahaa baarlamaanka iyo guddoonka wuxuu yahay shaqadooda iyo mas'uuliyadooda intaasoo dhan uu kuu sheegaa. marka sharcigan horta baahi weyna loo qabay. baahida waxa waaye runtii kufsigiyo jiro ha noqoto wiilal ha noqdaan caruur ha noqdaan gabdho haween way jirtaa. marka waxa loo baahan yahay sharcigii loogu talagalay inuu badbaadiyo xuquuqda dadkaas. wadanka sharci ma ugu olin miya marka sharciga fiiri sharciga anaga sharci waa qabnaa sharciga ciqaabta jiro sharciga ciqaabta 70kii ayaa la qoray. marka waxaa jira baahi dambiyo yimid kadib oo ay ka mid tahay qof in intii la xoogo wax laga duubo youtube-ka la geliyo
Instagram la geliyo oo hadda ay ka dhacdo waxay ka Waa. dhacday cabud waaq gabar lagu xoogay 4 rag ay xoogeen ay ka duubeen ay Instagram geliyeen sharciga ciqaabta ma qoraay ma haay dembigaas maba ku qorno marka waqtigaas maba ma jirin jirin waay marka wax cusub waay wax cusub waay isbedel cusub loo baahan isbedel cusub baa loo baahan yahay waay sharcigaas marka hadduu jiri lahaa maanta aan qabi lahayn dadkaas markii eedeysanayaashaas markii maxkamad la geeyo wax lagu qaadi lahaa kufsigana waa ciqaabay u ahaan lahayd culaysna waxaa sii culaysiinaya culays sii saaraya arrinta ah in oo qofkii la geliyey youtube-ka waay waxaan rabaa marka saacad wasiir inaan aad u ogaano buuqa marka kow xagge kaaga yimid markaad intaas haddaad noo faahfaahisay macluumaad fiican naga siisay ma waxaa la isku qabsaday sida loo fasirayo kufsiga waxaan arkaynaa dood ka taagan arrinta kufsiga oo xataa baarlamaanka gudihiisa waan soo qaadan karna xataa madaxda baarlamaanka qaarkood inay arrintaasi ka hadlayeen kaba soo qaad guddoomiyihii hore ee baarlamaanka maxamed mursal waxa uu leeyahay sharcigan wuxuu fasaxayaa zinada iyo qaniisnimada wuxuu ku sheegay mana sheegin haba yaraatee qodob uu ka soo qaatay sharciga uu leeyahay qodobkaas iyo qodobkaas saasay leeyihiin arrimaha marka maxaa keena culayskaas horta sharcigan 59 page waay adigana waa kula waan arkay ha waad aragtay waay marka aniga runtii intaan qof weynna waa ahay intaan soo joogay waddanka weligay ma arkin taleefon insaan loo furto smartphone laga akhrinayo dukumenti dowladeed dukumenti laga akhrinayo waay oo weliba dukumenti dowladeed oo dukumenti dowladeed ah baarlamaankana uusan dood haysan gelinin waay marka horta sharcigan si xunaa loo siyaasaday taasna waa u imaan sababtu doonaa maxay tahay waa kuu sheegi doonaa waay sharcigan horta haddii xeer hoosaad iyo dastuur waddanka ka jiro waxa waaye sharcigan looma raacin waa lagu digtay oo si xun ayaa awood sharci maxaa la abuse of power ku takrifal awoodeed lagu ha suubiyey waay oo guddoonkii hore ka yimid waay sababtoo ah sharciga sidiisa sharci waa la naqi karaa xukuumad waa loo naqi karaa 2019 guddoomiyaha wuu naqay 2 sharciyuu naqay 2 sharci midna wuxuu ahay isla xukuumaddii aan ka tirsanaa 2017 sharci ee geysay oo la leeyahay arrimaha waxyaabaha qarxa iyo maarad hubka lagu xakameynayo oo gadaal loo soo celiyey wasaaradda amniga gudaha keentay waay waa la ceshay laakiin see lagu ceshay akhriska koowaadee martay akhriska koowaad markay martay aa la soo celiyey wid ay tahay sida saxda ah oo sharci lagu soo celin karo waay laakiin sharciga dambiyada jinsiga saan lama yeelin maba la furinba ma la furin baarlamaanka guddiga maxaa la dhahaa 275 waa loo qaybiyey guddoonka iyo baarlamaanka ayaa madaxdiisa baarlamaankii tobnaad ayaa go-aansaday in ay hor istaagaan marka haddaan kuu sheego ha roolka baarlamaanka guddoonka maxaa waaye guddoomiyaha arbitra waaye firimbio inuu haysta ay tahay oo xeer hoosaadkan ku dhaqo xeer hoosaadkiina waa jebiyey way jebiyeen asagii laba ee guddoomiye ku-xigeenadiisii guddoonka xeer hoosaadkii ayaga qorteen ay ku saxiixan yihiinna ay saxiixeenna way jebiyeen dastuurkii oo ah in oo maaragtay awoodda guddoonka ma laha waay baarlamaanka iskale baarlamaanka ayaa aada dooranaya guddoomiyahooda iyo guddoonkooda waa marka inay ugu adeegaan baarlamaanka marka shaqadii baarlamaanka isku ekeeyeen shaqadii ayagaa baarlamaanka isku ekeeyey. guddiga isku ma garatay waay koox aha kooxaysi maxaa marka keeni kara iyaga inay hor istaagaan sharcigan iyagoo weliba dhahaya mataqaanaa wuxuu kasoo horjeedaa diinta wuxuu kasoo horjeedaa dhaqanka wixina aanan qodobo la sheegaynin dibna aan loo celinin laakiin si toosa adiga si shaksi lagu bartilmaameysanayo horta first of all waxa waaye qofkii sharcigaas khaniis iyo waxaas ka hela bal ha keeno
inta haddii kale dulmi waayo. sharciga sharci dowladeed waayo xukuumadu ka yimid baarlamaanka xaq u leeyahay inuu diido isagoo maraya dhabii loogu talagalay maxaa shakhsiyad looga dhigay shakhsi looga dhigay oo gaar ahaan adiga lagu cambaaraynayo waxay ahayd waqti kala guura lagu jiray annaga xukuumaddeena waa dhacday xukuumaddeena markay dhacday qofka qasab ma aha inuu soo noqdo xukuumadda ra'iisul wasaare cusub aa imaanaya waayo golihiisuu keensanaya mogtahay marka siyaasad waxay u ahayd you know dad aniga aan isku beelnahay oo kursi naga dhexeeyo ayaa bahash siyaasadeeyay baarlamaanka lagu isticmaalay baarlamaankana waa loo isticmaalay baarlamaankana way ka mid ahaayeen oo ayagana siyaasad ayay ka wateen laakiin qofka in ay baarlamaankii ahaa hay-adda ugu sarreysay ee sharci dejinta oo ahayd sharciga inay ilaaliso soo celiso ahayd hadday sharcigii awooddi ku takrifalto oo ay qof muwaadin ah isla markaasna xukuumad ka tirsan xilga intaas isbedelka markaas ma dhicin mogtahay ay maaragtay si shaksi loo ataago yaa kala celinaya marka maxaa dareentay marka adiga shakhsiyan maxaa dareentay mar haddii sharcigii aad rabtay inaad gudbiso oo aad inuu gudbo keliya maaha inaad rabtay in laga doodo inuu xeer noqdo inuu sharciga maro oo nidaamka waddanka maro in adiga keligaa laga dhigay qof aan dowlad iyo xukuumad iyo waxna matalinay wax iska soo qortay maxaa dareentay wallaahi horta waxaan dareemay runtii aadan horta uga xumaaday kow waxaan ka xumaaday sharcigaas baahida uu dabooli lahaa yaa in la hor istaagay oo ah gabdhaha Soomaaliyeed caruurta Soomaaliyeed dhibanayaasha ah oo maalin kasta dhibaatada ku dhacayso ya in aysan haysan sharci kala reebay dadku waxay ku kala haraan ay ku kala joogaan sharciga waay markaas arrinta ay dhacayso September ya gabar yar oo Soomaali ah oo hadda soo baxaysay jaamacad soo dhameysay waalidkeed dhibaato ku soo koriyeen ayaa in la xoogay la isugu tagay la dilay saddex dabaq laga soo tuuray sidii qashinkii oo kale sharcigaas yaa markaas bahashaasaytu waxay ahayd weyd markii ay dhacday laakiin dad badan ku lug lahay la leeyahay dad badanaa ku lug lahay gabadha dilkeeda iyo gabadha waa la dilay reerkeeda marka tacadigan dumarka dhacaya dad badan ay faa'iido ugu jirtaa marka fiiri haddii aanan dadku gabdhihii aysan helaynin iyo caruurtii iyo protection ay helaynin sharcigii badbaadin lahaayna been iyo khuraafaad iyo dulmi yaa lagu soo oogaayo aanan ma aragta aanan la rabin 9 sano 2027 ma ii sheegi kartaa sababta dhalinaysa 9 sano in maaragtay maalin kasta la hortaagan yahay waa loo diiday baarlamaanka oo 275 qof ka tirsan oo meel kasta ka yimid oo culimo ku jirto oo looyaro ku jirto oo ay dad waxbartay ku jiraan in fursadda sharciga siinayo ay ku matalaan xildhibaannimada inay ayaga intay akhristaan yaa aanan loo yeerinin oon foon looga yeerinin yaa ay ayaga intay akhristaan shaqadooda ka gutaan wixii ay ka bedelayaan ama ay ku darayaan loo ogolaayo yaa wax celinayo oo guddoonka takrifalkooda ay ma aragta awoodeed jacdhihi karana aysan jirin waaya marka dowladda haddiiba sidan ay dhacday oo baarlamaankii xeerkii ka gudbay oo adiga ku shakhsiyadeeyey sharciga aad waday xukuumaddina ay dhacday oo hadda xukuumad markaa jirta aysan jirin cid kaloo dowladda ka tirsan oo ku difaaci karto dhihi karta qofkan waa muwaadin howl dowladeedu hayay ma jirin miya waxaa jiray muwaadiniin dhalinyaro u badan tahay oo runtii aad u dagaalamay yaa runtiina waxaan fursaddan uga faa'iidaysanaa inaan maaragtay aan u maaragtay dhaho waa mahadsantihiin because way aqriyeen midda kale dhibaatada waddanka ka jirtaa waxay tahay informationkan maaragtay
dadku ma yaqaanaan se u helaan marka waxa waaye waxbaan kuu sheegaa ya i dhegeyso annagana hadda heer waxaan gaarnay Soomaali haddaan nahay inaanan rabin inaan juhdi gelino inaan wax aqrino oo annaga si aan annagoo wax og ya wax u gaarnay ma fahantay marka dareenkaaga markii ka hadlaysay dareenkayga waxa waaye koo ilaa maanta sharcigaas inuusan jirin ya dad waxaa jira badan oo dibadda joogay maxaad dhiban u noqotay adiga oo intaasoo dagaal lagula galay oo xildhibaano kaliya ma ahan guddoonkii xildhibaano baarlamaanka ka tirsan kaaga hor imaanayaan intaas ay dhibaato ku geysanayaan ma akhriyeen su-aasha aan weydiinayo waxay tahay ma la akhriyey ma wax la akhriyo matalaad haddaad rabtid inaad xildhibaan tahay oo aad soo qaadatay kursigii aad shacbigii matalaysid mas-uuliyaddaada inaad kasoo baxdid waay xeer hoosaadka maxaa loo qorana haddaan lagu dhaqmaynin haddii la yiraahdo sharcigan waa la diiday waa la gartay baarlamaanku diiday laakiin in adiga islaamnimadaada iyo dhaqankaagii lagu tilmaamo wax dowladeedu waday yaa adiga ku difaacaya aniga horta runtii problemka Soomaali jiro waxa waaye haddii aad qof shaqaysanayo oo ma aragtay iimaankeeda qabto oonan qofna dembi ka gelaynin laakiin danta guud ka shaqaynayo ya haddaad tahay dhibaata ku sugan tahay waa in lagu siibo oo meesha lagaa qaado ya laakiin runtii jagadu dhib ma aha ya ani horena waa u jiray nolosheeda waa u wadanaya haddana waa socdaa mogtahay laakiin waxa waaye sumcadaada in la hadleeyo oo ma aragtay adiga diintaadii iyo dhaqankaagii iyo sharaftaadii lagu dheelo ya oo dad madax oo dowladda ka tirsanay yaa ku dacweynaysaa markaasoo kale ma aragtay waxa waaye ilaaha kusii daynay sooma ilaahayna waa aragtaa u malaynaa dad badan oo xuquuqdeedii baa la qaatay dhahayo ilaahay wax ka awood badan ma laha adoo raalli ah marka deeqa waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo meeshan ma wax dhaqaalaha ku jira waxaan ognahay Soomaaliya waxaa laga shaqeeya inta badan waa la isku haysto waa dana shakhsi ah taasaa lagu waayay danta caamka ahayd ma jira marka qarash loogu talagalay meelmarinta xeerkan oo ka yimid dalal ama ka yimid urur caalami ah sharcigan markii la curinayay saan kuu sheegay inta badan sharcigan kaliya ma aha sharciga saxaafadda sharciga ma aragtay jinsiyadda oo wasaaradda arrimaha gudaha sharci kasto ya arrintaas support ha noqoto dowladda ama dibad ha ka timaado oo ayuutada Soomaaliya ama supportka la siiyo ha ku timaado budget supportka si ku timaado wasaaradaha waa la kabaa sharcigan waa runtaa waaye sababtoo ah Soomaaliya waxaa lagu leeyahay mashruuc ay soo qaadatay lacagaa gaalo ku bixisay ajnabi ku bixiyeen ya suuqa warkaas waa la isla wareegay laakiin sharciga aniga igama bilaaban 2013 soo bilaabay hadduu jira qarash lagu bixiyay waagaasaa lagu bixiyay intaasna waa jiitamay waa soo jiitamay laakiin waxa waaye marka dara shakhsi ah ku jira isleedahay waa wax kasta waxba laga daadsanayo waxa waaye ha noqoto kursi laga kacsanayo ha noqoto qof inuu ma aragtay dana ka leeyahay wax walba waa jira laakiin fiiri danta aniga aan ka shaqeynayo waxay aad gabdhaha Soomaaliyeed iyo carruurtaaseeto oo maalin kasta dhibaatada ku dhacayso ya in ay ka badbaadaan arrin kale aan kuu sheegaa aysan dadka ogeyn Soomaaliya ciidamadeeda waxay ku jiraan blacklist ee UN-ka kaga jiraan UNICEF Security Council-ka ciidankeena hadda Soomaaliya joogo hadda ma aragtay wadamada qaarkood inay peacekeeping iyo ciidamadooda loo diraan anaga kuweena ma diri karno anaga ciidankeena oo ma aragtay ciidamadeena ha noqdaan booliiska ha noqdaan xataa maamul goboleedyada ciidamadooda booliiska iyo kulli anaga blackmailist aan ku jirnaa laba arrin ugu jirnaa mid waxa waaye arrimaha kufsiga oo ciidanka qaar ka mid ah ciidanka Soomaaliyeed ciidan oo geesiin oo dad wanaagsan ay ku jiraan waa ciidankeena oo naftooda maalin kasta laakiin meel kasta hal qof aa ku qurminayo mogtahay marka waxaa ku jiro number yar oo falal noocaas ah galo waa number yar oo kusoo celina ma garatay
حتى كوا أجنبي أيا ده حسوا كله of سبتي ده course تعدي سمي annaga kufsiga. laakiin waa ku jirnaa واي raboorkaasaan kusoo baxnaa واي waxyaabaha ma aragtay ay muhiimka u tahay sharci inaad leedahay oo qofkii dembi gala oo mutaysanayo dembigii ciqaabtii loogu talagalay waxay saacidaysaa xataa ciidankaaga inuu ka baxo blacklistkaas aniga markaan aan ka shaqeynayo sharcigaas waxaan arkayay bigger pictureka oo ah hadday aan yeelano sharci ya arrimahaas kalena xataa waa bilaabay inaan security councilka SRG-yada ka shaqeeyo iyo ma aragtay arrimaha ciidankaas eventually inaan ka shaqeyno wasaaradda difaaca marka dadka ma fahmayaan waxyaabaha si isugu xiran yihiin imageka ciidanaad lacag gelisay tababar siisay laakiin hadduusan la mid ahayn wadamada kale ciidankooda oo haddii loo baahday aysan dibadda xataa aadi karin maxay ku taray aad iyo aad waa arrin weyn waaye marka maxaa is leedahay muxuu salka ku hayaa markaad qiimayso wax badan aad isbarkan mar lacagaa soo geli karta mar dana shakhsi soo geli kara mar dowladdii ku difaaci lahayd aa meesha ka maqan waxaan ka wadaa xukuumaddii sharcigan iska lahayd ee Soomaali marisay waxaasoo dhan markaad qiimayso muxuu salka ku hayaa bay kula tahay diidmada xeerkan yaa maslaxad ku qaba in kufsiga iyo tacadiga dumarka Soomaalidu sii socdo walaahi ma aqaan jaahilnimo in uu tacdigan iska socdo oo dadku aysan ma aragtay sharci kala reebayo uusan jirin fiiri aniga hadda markii aadka ataaga la iigu soo qaaday reerkayga aniga shakhsiyadayda diintayda waa lagu gaalaysiihaa waxaa lagu leeyahay qofkaas gaal waryaa kuu sheegay anaaba kuu joogo qof muslim oo ah oo ku dhashay diinta yaa ku siinaya awooddaas qof kale inaad ku tiraahid caqiidadiisa aad daba gashid waxay ka mid tahay fowdada waddanka ka jirto ma fahamtay waxaa jira marka dad yiri kasoo qaad sababta hadda aan aniga Netherland u imid waxaa ka mid ahay dadka Holland dacwad socotay 2 sano qof muwaadin Soomaaliyeed oo waddankaas deganaa wuxuu yiri gabadhaas la soo dilo afcada shabaab soo dila dhiigeeda waa xalaal aniga dambiga qaadanaya dhiigana bixinaya waddanna wuxuu joogaa sharci ka socdo marka aniga 2 sano ay ugu qaadatay dacwadan ka furay waana ku soo guuleystay marka aniga muxuu saas u leeyahay marka qofka xagee ka soo galay qofkaas ma yaqaano mashruuc loo dhiibay inuu yahay ma ogi waxyaabaha uu isku difaaca waxaa ka mid ahayd xashiish iyo qamraan cabsanaay marka dhaa la soo dilo aan soo dhahayay aan iri sababtu maxay tahay wuxuu yiri waa saarnay waay inuu yiraahdo hal soo dilo muxuu u sameynaa sababta muxuu difaacayaa wuxuu markii sharciga soo baxay ma aqrinin laakiin haddana nolosheedu halis geliyay laakiin aniga waxaan u helay fursad waddan sharci ka jiro inaan la tago aan ka soo guuleysto aynan u noqoto tusaale ya dadka inaanan wadamada ay shuruucda ka jirto aan la isku xadgudbi karin runtii waana dhici doontaa maalin Soomaaliya arrintaas ay ma aragtay ka dhacdo laakiin dadka ugu sarreeyay oo sharci dejinta adiga haday ku ma aragtay kula dagaalamayso iyadoo dana siyaasadeed iyo shaqsi kale waxa waa dhibaato waay marka xukunka muxuu ku dambeeyay Netherland markaan ka hadalno waxa u timid arrintaas muddo ku qaadatay qofkan si bareer u yiri qofkan hal la dilo wuxuu ku dooday saad sheegtay dacwada ku soo qortay inuu mataqaanaa miirkiisa joogin maxaa lagu xukumay markaa waxaa midda kale aan ka ilo waxa waaye $15,000 oo cash ah gurigiisa waa laga helay markii la baaray adi waa shaqaysaa annaga waa shaqaynaa I don't think in guri ii ooli karto waay I don't know sababtay u tiili marka laakiin kulleyba sharcigii aniguu siiyey criminal record oo hadda qabaa qofkaas ma aragtay waxaa lagu xukumay in uu ma aragtay dembi hore uma uusan gelin laakiin kulley criminal record uu qabaa qofkan hore ma ku yaqaanay wax meel ka soo maagay ma taqaan qofaan ku garanaynin wuxuu ka hadlayo ogeen
wax aqrinin ku andacoonayo ma aragtay waa cirkaan maraayo qamre iyo xashiishaan isku darsan laakiin haddana qof waddanka joogo oo duruufaha aad ogtahay ku shaqaynayo inuu noloshiisa marka sideedaba waxa waaye inuu jiro waxa waaye sideedaba dadka wax kala hagaaya waxaa ii muuqata deeqa markaan fiiriyo marka doodaada gaar ahaan qadiyadan ku saabsan xeerkan iyo mashaakilka kala kulantay iyo dhibka kaa soo gaaray waxaa meesha ka maqan hanaankii dowladeed ee shuruucda ilaalin lahaa shuruucda meel marin lahaa fulin lahaa marka ma is leedahay mushkiladuba sharci iyo samayntiisa ma ahane meesha waxaa maqan dowladnimadii aa maqan wallaahi waa dhihi karnaa sababtoo ah haddii guddoonkii baarlamaanka uusan fahmaynin muhiimadda sharciga uu leeyahay haddaysan fahmaynin waajibaadkooda because waajibaadkooda waa inay fahmaan sababtoo ah ayaga baarlamaanka ma aha ayaga waa uun inay maamuuska baarlamaanka ilaaliyaan laakiin haddana inay meel wax ka aqriyaan leeyihiin waa ka xishoonaynaa sharciga xishood ma galo sharciga xishood ma galo sharciga waa inuu si clear ah dambi u cadeynayo ma aragtay sifooyinkii oo dhan sheegayo ma fahamtay marka sharcigu xishood ma galo midda kalena I don't think inay Soomaali jirto qof tahliil xaaji Axmed ya khibradda uu leeyahay leh ma fahamtay sharci isaga soo curiyay ya aanan laga wareysanin xataa baarlamaanka ma aysan u yeerin way dad badan marka dowladnimada dhiban u ah oo inay dalka u shaqeeyaan darteed loo dhibaateeyaa ama loo dilaa ama dhibaatooyin kale u soo gaaraan ma aaminsan tahay se is leedahay naftaada qataray ku gashay u shaqaynta qaranka gudihiisana kumaada helin wixii aad mudnayd dadka Soomaaliyeed oo lagu diray waad wada sheegtay sababtoo ah aniga runtii meeshaas waxaan u tagay fursada ay horta ilaahay isiiya alxamdulilah 3 sano iyo xoogaa ya ayaan kasoo shaqaynayay si daacada uga soo shaqeeyay waa ku faraxsanahay wixii aan qabtay fursadaas maantana muwaadin Soomaali ah iyadan oo ku faraxsanahay contribution waa ka dhiman karaa siyaabo kale qasab ma aha ya dhaqaalaan aan contribution Soomaali uga suubin karaa mentorina waxaan u suubi karaa dhalinyaro haddaan rabo qasab ma aha dowladnimada meel kasta ka soo geli kartaa ya laakiin waxaa qalad ah in ma aragtay takrifalka noocaas ah weligeedna ma soo marin aniga kulli maanan arkin waay hadda waxa u eedeysan tahay xeerkaas dartiisa u eedeysan tahay maanta aniga xeerkaasayto maantaan ku leeyahay hadda waqti yaan la dhuminin tahliil warqa sharci oo qoray ya qof maanta kasoo daba hadli karo ma jiro markii naqasti la naqay 2019 sharci darre ahayd marka meesha ha laga sii wado baarlamaanka ha lagu celiyo iyadoonan executive-ka loo celinin ya ha laga doodo waxa shakhsiyan ku soo gaaray marka maxaad u furan weysa dacwad dalka ah oo madaxda sida gaarka ah adiga diinta kaaga saaray ama ku ijaafeeyay aad ula mari weysa sharciga والله هرتا مال وحول مال لقى بلابي لهذا هاي مدانا نكون بلابي لكن يدي هذا دتك قار كمد أما رح معها موقته أنا أي وح أصلنا الشعب واي كي أقولنا فرق ترى فرضت اللي هاي كمد أهل دولة وناق إسل حسابتهم دولة وناق وحن معها أدي هذا ما صنتهاي maxaa kaloo ku dirlay deeq arintan aan ku soo gabagabeynaa maxaa ku dirlay horta waa mahadsan tahay runtii waa ka mahad celinayaa dardaaran aan ku soo gabagabeyn lahaa waxaan ku soo gabagabeyn lahaa koow Soomaalida inay wax aqriso dowladooda inay la xisaabtan si ay u xisaabtantana waa inay ayaga waxooda aqristaan
aan la dhihin saadaa la yiri saasaa la sheegayay qof aanan dembi looga gelin dhalinyaradana marka waxaan runtii aan ku gobaabinayaa in ay raadsadaan informationka ayaga ay akhristaan aanan looga hadlin ay ayaga akhriyaan midda kale saxaafadda sidoo kale inay noqdaan saxaafad wax ma aragtay dhisaysa investigation suubinaysa ayaga informationki raadinaya marka intaasaan runtii kula talinaya aad iyo aad u mahadsan tahay deeqo yaasiin xaaji yuusuf wasiirkii hore ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha ayay ahayd oo barnaamijka marti noogu ahayd waad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkan intaynu mar kale kulmi doono waxaad leenahay nabadgalo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baahan noolaato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad rukumato ama subscriber ka noqoto barta youtube-ka adiga oo markiiba heli doono barnaamijka markii aan soo gelino waad ku mahadsan tahay ku xirnaanshaha ha noolaato taageeradiinnu wax weyn bay noo tahay mahadsanid